bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan daawadayaal qodobada wararka TV saakidin haya waxaa ka mid ah howlgal dad lagu qabtay oo ciidamada ammaanka Soomaaliya ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan Muqdisho iyo taliska booliiska oo faahfaahin ka bixiyay howlgalkaasi xafiiska ra'iisul wasaare Khayre oo shirqool u maleegaya wariye u xiran dawladda Soomaaliya Kenya oo ku dhawaaqday tilaabooyin ka dhan ah Soomaaliya 10 safiir oo ansixiyeen golaha wasiirada oo aan dalal loo magacaabin safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya oo booqasho ku tagay Kismaayo sheeganay inuu ku kalsoon yahay in Axmed Madoobe uu qabto doorasho xor iyo xalaal ah Kenya oo inta badan heshiis ay la gashay dawladda Soomaaliya ka baxday wararka dibadda wararka TV saaka idin hayana waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Qatar oo ka qayb galaya shirka dhacaya Sacuudi Carabiya iyo dawladda Iran oo shuruud ku xirtay in ay wada hadal la gasho Mareykanka daawadayaal ku soo dhawaada warkaasi oo fidsan haddii aad ka mid tahay daawadayaashana ku cusub barta YouTube-ka fadlan rukuma barteena adigoo subscribe dhahaya si aad u heshid warar iyo warbixino quseeya Soomaaliya iyo caalamka howlgal ammaanka lagu xaqiijinayo oo dad lagu qabqabtay ayaa ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya waxa ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo taliska booliiska Soomaaliya uu faahfaahin ka bixiyay howlgalkaasi ciidamada ammaanka Soomaaliya ay ka sameeyeen xaafadaha magaalada Muqdisho ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa howlgallada ammaanka lagu xaqiijinayo waxa saacadihii la soo dhaafay ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmooyinka Hodan wadajir xamar weyne iyo degmada Wardhigle ee gobolka Banaadir waxaana howlgalladaasi lagu soo qabtay ku dhawaad 30 qof oo u badan dhalinyaro kuwaas oo looga shakisan yahay in qaarkood ay xubno ka yihiin ururka Al-Shabaab halka kuwa kalena lagu eedeynayo inay dhac ka geysanayeen xaafado ka tirsan degmooyinka magaalada Muqdisho taliye ku-xigeenka booliiska Soomaaliya General Sakiyo Xuseen Axmed ayaa warbaahinta u sheegtay in dadka la soo qabtay ay yihiin dad la tuhunsan yahay siday hadalka u dhigtay isla markaana ay wajihi doonaan cadaalad iyadoo intaas ku dartay in ciidamada booliiska Soomaaliya ay har iyo habeen u taagan yihiin xaqiijinta ammaanka isla markaana ay ka hortagayaan cid kasta oo dhibaateynaysa shacabka waxayna sheegtay in dadka la soo qabtay oo 30 qof ah qaarkood la tuhunsan yahay inay ku leeyihiin falalka amni darre ee ka dhacaya magaalada Muqdisho iyadoona sheegtay in sidoo kale dadka la haya qaarkood looga shakisan yahay in wada shaqeyn ay la leeyihiin ururka Al-Shabaab siday hadalka u dhigtay taliye ku-xigeenka booliiska Soomaaliya General Sakiyo waxa ay ku amaantay shacabka sida fariimaha ammaanka la xiriira ay ugu soo dirayaan sidii hadalka u dhigtay numberka 991 oo ciidamada booliiska Soomaaliya u isticmaalaan xaqiijinta ammaanka Muqdisho booliiska Soomaaliya ayaa kordhiyay maalmihii u dambeeyay howlgallada lagu xaqiijinayo ammaanka tan iyo markii la guda galay bisha barakeysan ee Ramadaan oo ururka Al-Shabaab looga bartay inay kordhiyaan weerarada lagu qalqalgelinayo ammaanka caasimadda magaalada Muqdisho xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sida xog lagu helay wado qorshe shirqool ah oo ka dhan ah wariye Cali Aadan Muumin oo u xiran ciidanka booliiska Soomaaliya wararka ay heshay shabakada wararka TV ayaa sheegaya in dhalinyaro ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ay wadaan olole ay ku doonayaan in looga laabto go'aan shalay ka soo baxay maxkamadda gobolka Banaadir oo ku aadanaa kiiska wariye Cali Aadan Muumin oo ka mid ah wariyaasha warbaahinta goobjoog ka oo ciidamada booliiska ay ku xireen xarunta dambi baarista booliiska Soomaaliya ee CID-da Cabdiraxmaan Saciid Axmed oo ka tirsan go'aansoorayaasha maxkamadda gobolka Banaadir ayaa shalay soo saaray xukun ku saabsan kiiska loo haystay wariye Cali Aadan Muumin oo ka tirsan warbaahinta goobjoog ee magaalada Muqdisho wuxuuna amray in la sii daayo marka uu dhamaado imtixaanka dugsiyada sare ee Soomaaliya ee ku eg maalinta Jimcaha ah dhalinyaro gacan ka haysta ra'iisul wasaare Khayre kana tirsan xafiiskiisa ayaa la hadlay Cabdiraxmaan Saciid Axmed oo ka tirsan go'aansoorayaasha maxkamadda gobolka Banaadir waxayna cadaadis ku saareen in uu ka laabto xukunka uu shaaciyay ee ku aadan wariye Cali Aadan Muumin dhalinyarada oo la aaminsan yahay in gadaal uu ka riixay ra'iisul wasaaraha ayaa garsoorahaasi ku amray in uu racfaan ka furo xukunka wariye Cali Aadan isla markaana aysan ku qanacsanayn xukunkaasi xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa hanjabaad culus u diray garsoore Cabdiraxmaan Saciid Axmed oo ka tirsan maxkamadda gobolka Banaadir haddii uu ka laaban waayo go'aankaasi laga qaadi doono tallaabo ka dhan ah xilkiisa sida wararka ay heshay warbaahinta wararka TV ay sheegayaan dhalinyaradaasi ka tirsan xafiiska Khayre ayaa garsooraha ugu hanjabay inay xamar ka ceerin doonaan maadaama isagu uu ka soo jeedo deegaanada Somaliland haddii uusan sameyn arrinta sharci darrada ah oo ay rabaan
sida gariiqaan ka tirsan maxkamadda gobolka Banaadir oo u sheegay shabakadda wararka TV. mar haddii maxkamadda ay gaarto go'aan isla markaana aan isla fadhigaas looga dhawaaqin inuu racfaan furan yahay, sida ayuu ansax ku yahay go'aanka isla markaana meesha lagu xirayaa faylka faldambiyeedkaasi sida hadalka uu dhigay. garsoore Cabdiraxmaan Saciid Axmed markii uu riday xukunka, wariye Cali Aadan Muumin ma uusan sheegin in dambiilo uu yahay iyo in kale. sidoo kale go'aankiisu wuxuu ku saleeyay in ay eed uga timid siduu hadalka u dhigay xafiiska borotokoolka madaxweynaha, taliska booliiska iyo wasaaradda waxbarashada. sidoo kale waxaa xusid mudan in uusan wax racfaan ah ka furan go'aanka uu shalay ka gaaray kiiskiisa wariye Cali Aadan Muumin oo si sharci darro ugu xiran booliiska Soomaaliya. dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqday tallaabooyin hor leh oo ka dhan ah dowladda Soomaaliya. dowladda Kenya ayaa sheegtay inaysan ogolaan doonin in alaab xamuul ah oo aysan cidna la socon ay diyaaradaha ka imaanaya Soomaaliya ay soo geliyaan dalka Kenya. bayaan ka soo baxay dowladda Kenya ayaa lagu sheegay in shixnad kasta oo sida ah la wareegi doono kadibna la burburin doono si waafaqsan xeerarka gaadiidka hawada. dowladda Kenya waxay ogaatay oo ay walaac ka qabtaa shixnado badan oo aysan cidna la socon oo kaga imaanaya Soomaaliya. tani waxa ay jebinaysaa xeerka caalamiga ah ee gaadiidka waxaana ay soo rogaysaa halis amni ayaa lagu yiri bayaankaasi ka soo baxay Kenya. sidaa daraaddeed dowladda Kenya ma ogolaan doonto in alaab aysan cidna la socon ay ka soo gasho dalka Soomaaliya. diyaarad kasta oo arrintaasi samaysana waxa ay qaadi doontaa mas'uuliyadda ka dhalata ayaa lagu yiri bayaankaasi. arrintan ayaa u muuqata mid cadaadis xoog leh lagu saaraya ganacsatada Soomaaliyeed oo markii hore awoodi jiray in iyagoo dalkooda jooga ay alaab u diraan dalka Kenya, kuwa oo markay ay halkaasi tagto ay la wareegi jireen ganacsato kale oo xiriir shaqo leh. go'aanka ka soo baxa Kenya ayaa qayb ka tallaabooyin dhowr ah oo Kenya ay cadaadis ku saarayso dowladda Soomaaliya oo ugu dambeysay fiisaha xubnaha dowladda Soomaaliya ay ka qaadan jireen garoonka diyaaradaha ee dalka Kenya. Kenya ayaa doonaysa in Soomaaliya ay ku qasabto inay ka laabato dacwadda taalla maxkamadda caalamiga ee la xiriirta arrinta badda Soomaaliya oo ay isku hayaan Kenya iyo Soomaaliya. dowladda Kenya ayaa ka baxday inta badan heshiis ay la gashay dowladda Soomaaliya iyadoo tallaabooyin xigay dowladda Kenya ay qaaday intii u dhaxaysay bilihii Febraayo iyo May. dowladda Kenya ayaa qaaday tallaabooyin ka dhan ah dowladda Soomaaliya 5 bilood ee la soo dhaafay, waxaana jiray heshiis ay galeen dowladda Soomaaliya iyo Kenya oo mas'uuliyiinta Kenya ay ka baxeen. Febraayo 16 2019 dowladda Kenya ayaa sheegtay in u yeertay safiirkeeda Soomaaliya inuu dalka dib ugu soo laabto, iyadoo safiirka Soomaaliya ee Kenya fartay in dowladdiisa wadahadal uu la soo yeesho. Kenya ayaa sheegtay inay ka caraysan tahay sida ay dowladda Soomaaliya u beecisay shidaalka dhulbadeedka Kenya ee dhaca xuduudda Soomaaliya. qoraalkaasi ayaa lagu sheegay in xaraashkaasi uu ka dhacay magaalada London 7 Febraayo ee sanadka 2019. March 6 2019 madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in Soomaaliya iyo Kenya ay heshiis ka gaareen in dib loo soo celiyay xiriirkii labada wadan kadib wadahadal Nairobi ay ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhigiisa Kenya Uhuru Kenyatta. xiriirka labada dal ayaa xumaaday 16 Febraayo markii Kenya ay soo ceerisay safiirkii Soomaaliya u fadhiyay dalka Kenya Ambassador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, isla markaana ay u yeertay safiirkeedii Muqdisho Lucas Tumbo. dadaalka lagu soo afjaray xiisadda labada dal waxaa kaalin weyn ka qaatay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo si wadajir ah magaalada Nairobi u tageen isagii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. March 19 2019 ciidamada Kenya ayaa ka baxay deegaanka Busaar oo hoostaga degmada Ceelwaq ee gobolka Gado, halkaas oo haysteen dhowrkii sano ee la soo dhaafay, waxaana sidoo kale xilligaasi ay ka baxeen deegaano dhowr ah oo ku yaala gobolka Gado, taa oo la sheegay inay tahay culays lagu saarayo dowladda dhexe ee Soomaaliya. May 10 2019 dowladda Kenya ayaa joojisay duulimaadyadii tooska ahaa ee magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi. Kenya ayaa ku sheegtay war ka soo baxay in dhammaan duulimaadyadii tooska ahaa ee ka imaan jiray magaalada Muqdisho ay soo maraan magaalada Wajeer ka hor inta aysan u gudbin magaalada Nairobi.
diyaaradaha ka imaanaya Soomaaliya ayaa mar walba mari jiray wajeer ha yeeshee heshiis dhex maray labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya bishii Maaj 2017 ayaa lagu ogolaaday duulimaadka tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi. May 21keeda 2019 saddex mas'uul oo ka tirsan hay'adaha dawladda Soomaaliya ayaa dawladda Kenya u diiday inay galaan magaalada Nairobi kadib markii loo diiday in baasaboorka diblomaasiga ah ay wateen lagu dhufto fiisaha dalku galka Kenya. saddexda mas'uul ayaa kala ahaa wasiir ku-xigeenka tamarta iyo biyaha Cusmaan Libaax Ibraahim, Senator Samsam Daahir iyo Senator Ilyas Cali Xasan oo ka tirsan xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. May 29keeda 2019 dawladda Kenya ayaa sheegtay inaysan ogolaan doonin in dalkeeda ay soo galaan alaabo aan cidna la socon oo la soo saaro duulimaadyada ka yimaada dhinaca Soomaaliya. warqadood oo ka soo baxay Kenya ayaa lagu sheegay in shixnadaha noocaasi ah ay Kenya la wareegi doonto ayna burburin doonto. qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa sheegay in dhammaan go'aanada ay qaadatay dawladda Kenya ay yihiin kuwa ay ku doonayso in ay dawladda Soomaaliya cadaadis ku saarto si ay uga laabato dacwadda badda ee u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya. 10 safiir oo ay ansixiyeen golaha wasiirada oo aan wali dalal loo magacaabin. iyadoo shalay wareegto uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku magacaabay safiirka dawladda Soomaaliya u fadhin doona dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa waxaa soo baxay safiiro bilo ka hor ay golaha wasiirada dalacsiyeen heer safiir oo aan wali loo magacaabin dalal. golaha wasiirada ayaa tan iyo sanadkii hore ansixiyay ilaa iyo 15 safiir oo 3 ka mid ah dalal loo magacaabay halka kuwa kale aan wali dalal loo magacaabin balse ku magacaaban oo kaliya magaca safiir. tallaabooyinka cusub ee safiirada lagu ansixiyay ayaa ah mid isbarbaryaac ah oo lagu fuushan doono dana siyaasadeed, waxaana safiirada la ansixiyay ay ka mid noqdeen la taliyaasha faraha badan ee madaxda dawladda leeyihiin oo magacaabistooda kaliya ay dheer tahay kaararka aqoonsiga oo ay wataan. hase ahaatee nidaamka arrimaha dibadda ee u baahan xasilooni iyo aqoon durugsan ayaa noqday mid jaantaan rogan ah. safiiro aan dalna ku magacaawneyn ayaa gaaraya 10 halka safiiro badan ay dhowr sano safiir la yihiin. haddaba waxaan halkan ku soo bandhigaynaa magacyada safiirada la ansixiyay oo aan wali dalal loo magacaabin. 1 Xaawo Xasan Maxamed. 2 Cabdiweli Jeylaani Xaaji Cabdow. 3 Dr. Ibraahim Isaaq. 4 Xasan Xundubey Jimcaale. 5 Xasan Daahir Dhimbil. 6 محمد إساق إبراهيم. 7 محمد علي ميري. 8 محدين كالموي. 9 عبد حكيم عبد الله عمي kuwaasoo golaha wasiirada ay u ansixiyeen inay noqdaan safiir laakiin aan wali si rasmi ah lagu magacaabin dalalka ay safiirada ka noqon lahaayeen. safiirka dawladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya ayaa booqasho ku tagay magaalada Kismaayo halkaas uu kula kulmay hogaamiyaha maamulka Jubbaland, waxaana safiirka uu sheegay inuu ku kalsoon yahay in hogaamiyaha maamulkaasi Axmed Madoobe uu qaban doono doorasho xor iyo xalaal ah oo ay ku qancaan dhammaan rixiinta u taagan qabashada xilka hogaanka maamulka Jubbaland. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa magaalada Kismaayo ku qaabilay safiirka dawladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Ambassador Donald Yamato oo booqasho ku tagay magaalada Kismaayo. madaxweyne Axmed Madoobe iyo safiirka oo kulan gaar ah yeeshay ayaa diiradda saaray arrimaha amniga iyo doorashooyinka la filayay inay ka dhacaan magaalada Kismaayo. safiirka ayaa madaxweynaha Jubbaland ugu mahadceliyay sida ciidamada ammaanka Jubbaland ay ugu guuleysteen sugidda nabadgelyada magaalada Kismaayo, arrimaha siyaasadda iyo sida ay muhiimka u tahay wada shaqaynta dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah. waxaa kaloo madaxweynaha Jubbaland iyo safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka, iyadoo safiirku uu sheegay in kalsooni buuxda uu ku qabo in si wanaagsan ay ku dhici doonto doorashooyinka Jubbaland isla markaana si xor iyo xalaal ah loo qaban doono doorashooyinkaasi iyadoo cid kasta ay ku qanci doonto sidoo hadalka u dhigay. safiirka Mareykanka ayaa safarkiisa Kismaayo ahaa mid saacada ah, waxaana safarka Kismaayo la sheegay inuu qayb ka ahaa safarro uu ku tagay deegaano ka tirsan Puntland iyo Somaliland. wararka dibadda wararka TV caawa idin hayana waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha dalka Qatar ayaa ka qayb galaya shir ka dhacaya wadanka Sacuudi Carabiya xilli uu xumaa xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya Sacuudi Carabiya iyo dawladda Qatar. ra'iisul wasaaraha dalka Qatar Cabdullaahi Nasser bin Khalifa Al Thani ayaa ka qayb gali doona shir ka dhacaya magaalada Makkah
toddobaadkan. waa mid ka mid ah kulamadii ugu horreeyay ee heer sare ah dalalka carabta oo ay ka qayb galaysa Qatar tan iyo markii dalalka khaliijka carabta ay go'doomiyeen dalka yar ee Qatar 2 sano ka hor. shirkan ka dhacaya magaalada Makka waxaa iclaamiyay boqorka dalka Sacuudi Carabiya waxaana ka qayb galaya dhammaan hogaamiyaasha dalalka Islaamka. dowladaha khaliijka ayaa u muuqda inay doonayaan in ay go'doominta ka qaadaan dalka yar ee Qatar. shirka ayaa la filayaa in diiradda lagu saaro arrimaha amniga gobolka iyadoo ay ka jirto xiisad sii kordhaysa ee u dhaxaysa Iiraan iyo Mareykanka. dowladda Iiraan ayaa shuruud ku xirtay wadahadal ay la gasho Mareykanka xilli xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan ay cirka isku sii shareerayso. madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka la bilaabi karaan wada xaajood haddii dalkaasi ay ka qaadaan cunaqabataynta saaran. hadal qoraal ah oo uu soo saaray madaxweynaha ayaa lagu baahiyay telefishinka Iiraan ee ku hadla luqadda Ingiriiska ee Press TV waxaana madaxweyne Xasan Ruuxaani uu sheegay inay furan yihiin albaabada wada xaajoodka loona baahan yahay in Mareykanka uu qaado cunaqabataynta isla markaana ay xaqiijiyaan balamaha ay hore ula galeen dalka Iiraan. dhinaca kale la taliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton waxa uu ku eedeeyay Iiraan inay ku lug leedahay weerarkii bishan lagu qaaday maraakiibta shidaalka ee marayay meel ka baxsan xeebaha dalka Imaaraadka Carabta. laakiin dowladda Iiraan ayaa hore u beenisay eedeymahaasi hadda Mareykanka u jeediyay. guud ahaan daawadayaal warkii waad kala socoteen wararka TV saaka waa naga inta.